haddii uu gudoomiyaha golaha aniga igu wada inaan hayb la ahayna dee waan la ahay adoo haddaad dadkaagii ka hadhay anigu dadkaygii baan la joogaa gudoomiye fartoonow haddaad adigu dadkaaga ka hadhay anigu dadkaygii baan la socdaa hadalkaasi afjir gudoon ma aha ma la dhihi karaa maxaa adiga hadda baroorta orgeyga ka weyne maxay tahay wax adiga hadda ku soo kicinay haddii qaar inaga mid ihi wixii ummaddu ay ku heshiisay ay u adeegsanayaan siyaasadooda oo ay doonayaan inay dad nagu cagajugleeyaan qaarna ay ku dallaciyaan sharcigu uu inoo sinaan waayo ood gacanta ku qaadataan ood adigu ku horraysaan waxaad ka heshaan baad leedihiin saaad sharciga ka tallaabsataan ood ku horraysaan annana waanu ka tallaabsanaynaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriil ayaa halkan qaybo ka mid ah warbaahinta uu kula hadlayay waxa uu ka hadlay maalintii shalay ahayd loo soo jeediyay xildhibaan Maxamed Abiib taas oo xirlaalintu kula socodsiisay gudida joogtada ah in maamuska xayuubin iyo xilka qaadisba lagu sameeyo Cali Xaamud Jibriil ayaa waxa uu hanjabaado kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo arrimaha ka hadlay waxa hadaladiisa ka mid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu tahay 16 bishii 7 2024 xarunta golaha wakiilada ayaan saxaafadda ugu yeeray waxaan u sheegay arrin shirgudoonkaygu uu sharciga baal maray waxaa jirtay warqad ku taariikhaysan 14 bishii 7 2024 oo ahayd daraad hore oo ka soo baxday xafiiska xereeliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan warqadaasi oo shirgudoonkayga daraad hore u timiday waxa ahayd ujeedadeedu waxay tahay soo jeedin maamuska xayuubin xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac gudoomiyaha golaha wakiiladu isaga oo meena aan la garanayn ka soo shidaal qaatay ayuu arrintaa iga qariyay isagoo ii tirinaya inaan hayb la ahay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf anada ilaahay baa ii dooray waana ku faraxsanahay uu arrintii warqadii iga qarsado uu go'aan gaadhay keligii oo uu gudbiyo gudida joogtada ah ee golaha wakiilada arrintaasoo sharciga baal marsan maamuska xayuubinta gudida joogtadii xaq uma laha gudida joogtadii waxa weeye haddii xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada falgarasiyo lagu qabto oo soo faraha kula jira ama qof dilay ama wax gacanta lagu wada xidhan haddii uu galuhu furan yahayna shaqo kuma laha haddii uu galuhu xidhan yahayna fasax baa loo weydiinayaa xariga loo ogolaada hadda ka hor waxaa dhacay xildhibaan dhakool in xukuumadda muuse ay xidhatay iyagoo xidhan tahay guddidii joogtada ahaa waxaa la weydiistay in ay xadhigga u ogolaadaan ogolaansho xadhig bay weydiisteen wayna ka diideen laakiin tani waa maamuuska xayuubin warqaddu markay soo dhacday daraa toole wuxuu gudoomiyuhu xaq u leeyahay shirgudoonkaygu inaan isku nimaadno oo waraqaha xafiisadeeda keeno kadibna la wada hadlo legal advisories aanu yeedhno tallaabada ku habboon aanu qaadno laakiin tallaabo dhinaca ayuu qaaday hadduu dhinac qaadayna shirgudoonkii dhinac u qaatayna anna tallaabadaydaan go'aansan inaan dhinacna u qaado gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa leeyahay sharciga ku soo noqo haddaad ku soo noqon weydo sharciga golahaan hordhigayaa 27 mudanaan ka saxeexayaa oon ku jiro anigu si degdegaan golaha u fadhiisinayaa si loogugu soo dabaaqo sharciyada golaha wakiilada haddii aad soo celin weydo warqadda aad u gudbisay guddida joogtada ee golaha wakiilada waxaynu ku wada shaqaynaa waa sharci waxyaabaha lagu soo eedeeyna Abiib waxaa ka mid ah inuu Jabuuti kula kulmay safaaradda Soomaaliya iyadoo aan ku qoslay sawtii rag ka midii dalkani ay Brussels kula kulmayeen madaxweyne farmaajo iyadoo golaha wakiiladu iyo golaha guurtidu oo baarlamaan la isku iraaday ayaa sixiyeen in ay xukuumadda la doortay ay wada hadalka gali karto la kulmi karto quraata Nairobi xubno
golaha wasiirada ku jira kula kulmeen dowladda koonfureed ama dowladda Soomaaliya Brussels baa lagula kulmay waxayna habiib ugu eedeynayaan dee garan maayo waxayna habiib waxa ugu eedeynayaan anigu garan maayo haddii qaar inaga mid yihi wixii ummaddu ay ku heshiisay ay u adeegsanayaan siyaasadooda oo ay doonayaan inay dadna ugu cagajugleeyaan qaarna ay ku dalaciyaan sharcigu inoo sinaan waayo ood gacanta ku qaadataan ood adigu ku horeysaan waxaad ka heshaan baad leedihiin saad sharciga ka tallaabsataan ood ku horeysaan annana waanu ka tallaabsanaynaa anigoo marka hore sharcigii lagu heshiiyey iyo wixiisii ku dabaqaya waxaan leeyahay waxa lagu soo eedeyn waan ka wada hadli doonaa haddii guddoomiyaha golahu aniga igu eeday inaan hayb la ahayna dee waan la ahay adoo haddaad dadkaagii ka hadhay anu dadkaygii baan la joogaa sharci darranayna habiib lagu qaadi maayo ogolaana maayo guddoomiyaha golaha wakiilada waxaanu soo jeedinayaa inuu sharciga ku soo noqdo haddii kale golaha sida sharciga waafaqsan baan marayaa sida sharciga waafaqsan ayaan marayaa qolyaha xukunka haysta ee doonaya inay dad gaaro la beegsadaan si ay taageero uga helaan ama cagajuglayn wax soconaya maaha tani oo waxaad ka dagaalantay anna haygu kalifin sharcigaynu ku wada dhaqmaynaa sharci baynu ku wada nool nahay nin ka sarreeyaa ma jirto anna kama sarreeya adna kaa yeeli maayo anna hayga yeelin mar saddexaad waxaan soo jeedinayaa guddoomiyaha golaha wakiilada inuu sharciga ku soo dabaalo warqadaa soo celiyo oo guddoonka shir isku nimaadna haddii kale tallaabo sharciga waafaqsan baan qaadayaa ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland guddida joogtada goor baa loo gudbiyaa waxaa loo gudbiyaa haddii xildhibaanka falagarsiya lagu qabto ayaa golaha loo keenaya haddii goluhu xidhan yahay ayaa waxaa loo weydiinayaa in fasax baa looga qaadanayaa xadhigga ogolaansho xadhig waa markuu xidhan yahay sidii dhakool guddida joogtada waxaa la weydiistay ogolaansho haddii dhagaa ii fur sharcigan ku dabaqo sharcigu ummadda ugu siman tahay maahana u soo dagaalamaya adaa faqash ahaa adeer waynu wada siman nahay waxaan ahayna waan ku kalsoonahay aqbali maayo waxaan sharciyadda waafaqsanayn ma aqbalayo waxa weeye arrintayda abiilku waa maamuska xayuubin ma laha guddida joogtadii under no circumstances sharciyadda la gara maray waay shir guddoon baan ahay warqadda u soo dhacay maxaan uga shiri weynay maxay tahay warqadda u shireen ay yidhahdeen ina habiib uu la hayb yahay oo gaar layga shiro warqadda la tahriibinaya maxay tahay guddoomiye fartoonow haddaad adigu dadkaaga ka hadhay anigu dadkaygii baan la socdaa hadalkaasi afjir guddoon ma aha ma la dhihi karaa maxaa adiga hadda baroorta orgeyga ka weyne maxay tahay wax adiga hadda ku soo kicinaya waxay soo kicinayaa isagaa igaga horreeyo xaq baan u leeyahay sharci baan u leeyahay warqadda timiday ee xildhibaan maxamed habiibun maaha xildhibaan kasta oo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo saddexda shir guddoonka marka laga 79ka waanu simannahay hadday ka iman lahayd xeel dheere iyo hadday ka timaado xildhibaan khayreeyaba sida in abi aanu difaacayno shir guddoon ma soma dadkaaga haddaad ka dhaaro dadkii baan la socdaa day waxa dadkan ka hadlaya waa golaha wakiilada xildhibaan magacaygu waa maxay isagoo hadduu dadkiisa garab maray 29 xildhibaan u garab maray anigu iyagaan meesha u fadhiyaa layguna hoos qabsan maayo sharci waxa aniga imuuneeyay oo sharaf yeelay waa 70 iyo ii ka shirxilka qaadasad ku waxa aniga adeer sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada xoog iyo sharaf iyo aqli aanu dheernahay maaha horta xilkaad ka qaybta iyaga ayaa namuuneeyey iyaga inaanu difaacno waxooda hadda ka hor waxa dhacday in golaha wakiilada been cad laga sheego
oo la yidhaha hal xeer bay ansixiyeen oo uu guddoomiyaha golaha wakiilaan u soo jeedin oo uu ogaaday intii xeeray la ansixiyaan soo hordhignay oo uu tallaabo uu afkii golaha ku hadli kari waayey halkaad ka qaadaysaa markaa farato anuu taamalihi aqlabiyadda golaha wakiilada u taala anuu taamalihi